walaalayaal gogashan anaa dhigay waxaana u dhigay inaan ku shaaciyo musharaxnimadeyda oo maanta u soo istaagay xildhibaan galmudug raba u sharxan teeranka hadda dhamaanaya waqtigiisii dhamaanayo walaalayaal waxaa in ka codsanaya odayaasha dhaqanka oo soo ajiibay gogashayda waxaa in kaga mahad celinaya ajiibidii aad soo ajiibteen oo waqtigiina aad soo geliseen walaalayaal waxaa in ka codsanaya inay siisiin codkiina oo ila garab gashiin ilaa xilkaas ay ka codsaday baa ii soo jeedinaya adeeryaal iyo walaalayaal xilkaas gogolaha ka horeeyay oo beesha dhexdeeda waana ii soo gudbiyeen beesha ka dhashay oo reelowle maantana waxa u dhigay lagu jira u dhigay gogashan reelowlena waa tolkii soo siiyana waa fadhiyaan walaalayaal waxa ka codsanaya inaa xilkaas la igu garab galo oo la siiyo waxaana insha Allah ku matali doona beesha lagu jire oo walaalahaya sabay doona cadaalad dhab ah maadaama waa yaranimo u soo qaatay xilalkii nimankii iga horeeyay xilalka hayay waxa ma taqaana soo qabteen iyo xaaladda meesha marayso iyo kala qaybsanaasha beelaha ka dhex jira hadda ku guuleysto meeshaas waxa imaan doonta inaysa kala qaybsanaantaas inaa xalliyo anoo la tashan doono odayaasha dhaqanka iyo gooni iyo shir guudna kala tashan doono inaa khilaafyada jira dhameeyo oo hadduu ilaahay ugu guuleeyo beesha oo mid ah ku soo dhexeli doono oo salaadiinta iyo dhalinyarada iyo culimada sida kalsoonida leh ay siiyeen maanta kalsooni buuxda codkaas ay siiyeen waaga mahad celinaya walaalayaal wali xilkii waa isiiseen laakiin waxaan rabaa in ilaa ceelka salkiisa la tago inaan la iga harin waa inda soconaya in ka harmahayo waa la hibaatiin adeeryaashay baatiin waa isiiseen ilaa saxad inta hadaan naftu igu jirto in ay la ogaatiin marka la soo wareego aniguna xisaabtan baa diyaar u ahay in isku xirka beesha lagu jira ka shaqeeyo inta xilkaas da Ilaahay ugu guuleeyo waxaana u qaban doona matalaad dhab ah oo ku dhex yeesho beesha dhexdeeda waxaana sameey doona wax qabad muuqda haduu Ilaahay anoo la tashanaya odayaasha dhaqanka bari hilowlo kale jeebka igu ridamahayaan tala kasta waxa la wadaagi doona lagu jira sideed odayba wixii tala culays arko iyo wixii soo kordho wax qabada waa idin soo dhex dhigi doona